Assalaamu calaykum saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta oo aan ku baranayno reinforced concrete columns. Waa maxay reinforced concrete columns? Okay, reinforced concrete columns waxaa la yiraahdaa waa rigid vertical structural members. Okay, column markii la qeexayo intaas lagu qeexaa elementadii aan soo baranay oo beamkii iyo slabka waxay ahayn horizontal members. Okay, balse kan waa vertical, waa joog macnaha sida sawirkaba kaaga muuqato. rigid waxaa la dhahaa wax aan movement nuucoo rababa ha ahaadee aan ogolaanaynin, vertical, horizontal iyo moment ama bending inuu ku dhaco aan ogolaanaynin. yacni shaygan waa monolithic waa yacni element kaloo la shuban yahay sida beamka oo kale ayaa lala shubay. Okay, verticalna waa isla fahnay oo yacni waa shay joog ah oo taagan waa sida meesha kaaga muuqataba. waxaa loo design gareeyaa marka ugu horreynba inuu yacni support gareeyo culaysyada la yiraahdo axial compressive loads. yacni columnka hadda waa kana tusaale ahaan meeshaan noo yaalaa columnkeeni. Okay, so marka forceska way kala duwan yihiin. forceska shayga isku keenayo oo yacni pressurekan ku sameynayo waxaa la yiraahdaa compressive force. shayga way isku keenay macnaha. so marka shayga marka dhow maxaa ku yaraanaya dimension ahaan markii oo yacni compression forceska la soo saaro in shaygu isku soo aruuro yacni because of the compression force. Okay, so marka asiga wuxuu aad ugu fiican yahay ama marka la design gareynayo waxaa loo design gareeyaa in uu iska qaado loadska compressionka ah. Okay, so marka oo ka imaanaya lagu dhahay loadskan waxay ka imaanayaan beam. Okay, waxay ka imaanayaan beam iyo slab ayay ka imaanayaan. culeysyada ka imaaday culeysyada marka labadaas element ka imaaday ayaa uu qaadi doonaa columnka. Okay, sidoo kale shaqada kale uu qabanayo maxay tahay in uu u transfer gareeyo inuu yacni culeyskaas usii gudbiyo dhulka. Okay, laakiin dhulka moodaarigta u geenaa waa may wuxuu usii marsiinaa footing. Okay, footing waa bilindaha cagta macnaha oo yacni marka lasoo talaalayo columnka footing kasoo bilaabda. Okay, aas-aaska so marka footing ayuu u geynaa culeyska kadib ayaa dhulka loo sii gudbin doonaa. so marka wuxuu ku dhahay natiijo ahaan columnka waxaa waaye waa critical. critical waxaa waaye waa shay mudan in aad looga taxadiro, indha badan u baahan, designkiisa jacking badan u baahan, aadna xasaasi u ah macnaha. sababta xasaasi u noqonayo waxay tahay markaa fiirino load transfer mechanism qaabka culeysku u gudbo oo ah in slab ka imaado beam loo gudbiyo column loo sii gudbiyo footing kadib dhulka loo sii gudbiyo ama carrada. mechanismkaas oo dhan markaa fiirino si guud wuxuu ka mid yahay kuwa marka criticalka noqonayo oo aad xasaasiga u ah, u baahan designkooda in aad looga taxadiro, observation badan iyo control badanna u baahan. Okay, so marka wuxuu ku dhahay structure-kana wuxuu noqonayaa incomplete. structure-ada arkayso dhan waa incomplete without it. macnaheedu waxaa waaye column la'aan eber waa macnaha structure oo dhan wuxuu ku taagan yahay tiirarkaas waa. sidaa daraaddeed marka waxaa lagu dhahay member kasta ama xubin kasta oo vertical ah mar kasta ma noqonayo column. hadda waxaan sheegnay inuu vertical member inuu yahay. Okay, laakiin wuxuu ku leeyahay meeshaan xubin kasta oo gurigeena oo vertical ah ma dhihi karno mar kasta waa column. waxaa sababtoo ah column qaacido kale uu leeyahay. qaacidadan ku dheg columnka sida aad ogtahaba markaa hadda sawirno. Okay, laba dhinac uu leeyahay. dhinacaan oo kale waxaa waaye dhiidi ama hejta aan leenahay, dhinacaana waxaan leenahay waa biidi oo dhinac yar waa ama dhinac yar dhinaca gaaban aan dhahno. so marka columnka qaacidada lagu garto waxay tahay dhinaca dheer oo dhinacan ah lengthka ah ayaa waxa uu ka weyn yahay okay, waxa uu ka weyn yahay 3 jibaarka dhinaca gaaban oo biida iska dheh tusaale ahaan. marka formuladaas ku dheg waxaa laga rabaa columnkaada lengthkiisa inuu ka weynaado 3 jibaarka dhinaca gaaban oo biida ah ama widthka. Okay, so marka wuxuu ku dhahay haddii criteriadan la waayo, haddii macnaha qiimeyntan ama formuladan haddii aan weyno ama aan arki weyno columnkeena aan ka arki weyno wuxuu ku dhahay vertical memberkaas marka waxaan dhihi doonaa ama u aqoonsan doonaa in la yiraahdo strat. Okay, ma dhihi doono column waa strat aan leenahay. Okay, so marka wuxuu ku dhahay columnkaada strengthkiisa ama awoodiisa waxa go'aamiyo maxay tahay dhowr shay waa. waxaa materialkii loo isticmaalay oo lagu sameeyey. Okay, sidoo kale geometry cabirkiisa saameyn uu ku leeyahay awoodiisa, formkiisa qaabka u yaal ma rectangular ma circular ma mid elbow u eg miya ma ela ma tia wuxuu doona ahaado. cross section size sidoo kale cross sectionkiisa bidiisa iyo widthkiisa. Okay, sidoo kale lengthkiisa sidoo kale iyo positionka. yacni columnka waxaa taqaanaa meeshaana beam ayuu ka qabsanaa meesha hoose salkan hoosena ah meesha hoose salkan hoose ah oo meeshaan ah ayadana wuxuu ka qabsanaa labadaas meelba
waa laba dhinac oo supportyaal uu kala kulmaayo okay asaa wax ka support garana macnaha okay so marka support condition-kana way ku xiran tahay oo labada dhinac kor iyo hoos okay condition-ka ay tahay markaas ayadoo la fiirinayna strength-kiisa waa lagu go'aamiyaa okay marka dhismaha gebi ahaantiisba wuxuu ku taagan yahay column ayaa lagu yiri okay inta badan dhismayaasha ama guryahana marka ay failgaroobayaan ama ma aragtay ay dumayaan oo kale waxa ugu wacan waxay tahay waa column failure okay guriga dumay hadaa maqasho waxyaalaha ugu badan inta badan macnaha general speaking ayadoo laga hadlayo si guud ayadoo la hadlayo waa failure ku dhacay column-ka waa okay marba haddii column-kaada failure uu ka dhaco gurigaas inuu collapse sameynaa ama uu dumi doono waa la hubaa okay so marka muxuu ku dhahay inta badan wuxuu ku dhaca column failureska ama column inuu fail garoobo ama uu guuldareysto uu dumo way dhici kartaa okay kaliya uma dhici karta marka in design-ka kaliya khalad xagga design-ka ah kaliya ma la dhihi karo yani marka la design gareynayo design-kiisa sax ma ahayn oo kaliya ma aha yani ujeedka waxay noqon kartaa marmar poor construction practice qaab dhismeedkii loo maraayo column-keena in poor uu yahay yani waxyaalihii column-ka looga baahnay markii la dhisaayay ama stepskii la rabay in la raaco ayaa si fiican loo raacin okay so marka wuxuu ku dhahay waxaa muhiim ah ku dhahay in la ogaado habka la maro markii la rabo in column RCC si sax ah aan u shubno ama aan u taagno okay so marka meeshan wuxuu ku soo qaatay ilaa 4 stage oo loo baahan yahay marka column-ka laga hadlayo shaqadiisa inaad qabato shaqada ugu horreysa marka maxaa la lahaa column layout work okay shaqada marka maxaa waaye yani adiga engineer tahay structural engineer tahay balaankii guriga dhan lagugu soo gudbinaa okay so marka balaankan wuxuu ka kooban yahay grids okay xariiqmo yani oo cadeynaya meelaha beamka ay marayaan column-ka meelo mara so marka midna anaga column aan joognaa column-kan hadda grid-kan meesha uu ka dhacay inay cad tahay okay oo waxaa dhahaynaa grid-kan marka laga soo xisaabiyo halkan inta wuxuu u jiraa cabir gooni ah intan cabirka cabir inta ka yar so marka gridskan waxyaalaha go'aaminaya waa marka cabirada meeshan oo kale haddii uu yani maxaa la dhahayay u jiro 200 oo kale hadduu dhinacan yahay okay dhinacana 100 uu yahay tusaale ahaan mathalan so marka waxaas ayaa kuu go'aamin karo waa in gridskaada aad soo samaysataa grid la'aan lama sameeyo positionka column-kaadana ma kuu saxmayo haddaad grid haysan so marka positionka uu dhacayo in la hubiyo cabiradii drawing-ka lagu soo muujiyo oo structural engineer-ka uu soo cadeeyana sidii ay ahayd oo balaanka ku sawirneyd in site-ka loogu dabaqo okay oo site-ka marka imaado waxaa la rabaa positionkii saxda ahay oo drawing-ka lagu soo dhiibay ku sawirnaa inaad dhulkana aad ku sawirto oo ma aragta u calaamaysan oo marking aad u samayso column-ka positionada u dhici lahaa shaqadaas marka muhiim aad muhiim u tahay shaqada marka waxaa waaye column reinforcement work waa inaa birtii aad u diyaarisaa meeshii hadda way ku caddahay location-ku way ku caddahay in birihii aad arrange garayso okay birihii longitudinalka oo kale ka bilaabaysaa kuwii stirrups-ka ama la dhahayay links-ka ayaa sidoo kale u arrange garaynaysaa okay waxaanu dhan markaa isku habayso hadhow waxaa waaye iyadana shaqadaas shaqo aad u muhiim ah waaye as per requirements okay qaabka loo design gareeyay ayaa markaas raacaysaa okay meeshii laba link looga baahan laba link yaa u geline spacing-ka u dhexeedo waxaa la rabaa inuu kuu saxnaado okay marka reinforcement ka soo dhamay shaqada ku xigta marka waxaa waa column formwork waa qaabeeyaha waa tiirkan oo kale hadda birkiisa uu ku taagan yahay ayadoo cabirkiisa raacaya waxaa la rabaa formwork inaad ku xirto okay formwork sidaan oo kale ugu xiree okay formwork saas oo kale u xiree hadhow marka formwork-gaada markaas si nidaam u diyaarsato oo aad ka saxday inuu levelkiisa saxan yahay verticalka jooggiisa inuu toosan yahay inaad iska saxdaa laga rabaa okay shaqada ku xigta marka maxay noqonaysaa waa pouring concrete into column in shubkii aad ku shubto okay shubkii kuu qasnaay oo kuu diyaarsanaay in aad u isticmaasho oo aad ku shubto hadhowna kadib markuu adkaado formwork-ga laga furo kuyurinkiisana lagu sameeyo so marka waa stage-yada ugu muhiimsan ee la rabo in macnaha la iska ilaaliyo saaxiibayaal lecture-keena halkaas ayaan kusoo gaabinayaa waa mahadsantihiin dhammaantiin saaxiibadiina la share garaya videogan